wafdi sare u hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayna qayb ka yihiin madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee Soomaalida injineer Maxamed Shaale Isaaq wasiirka xafiiska horumarinta waraabka ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Faatax Maxamed wasiirka xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Cabdiqaadir Iimaan iyo mas'uuliyiin kale ayaa booqday mashruuca wax soo saarka Kulaniya Harawa ee aaga Gabe ee degmada Hadhagaale ee gobolka City madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa sheegay in mashruuca tijaabada bariiska ee deegaanka oo 3 bilood ka hor si tijaabo ah loo bilaabay beeristiisa wareegga ugu horeeya oo hakii laga beeray gobolka Shabeelle la goyn doono toddobaadka soo socda halka mashruuca bariiska ee Gabina la jari doono 3 toddobaad kadib wuxuuna madaxweyne ku-xigeenku sheegay in la diyaariyay dhammaan agabkii lagu jari lahaa mustaqbalkana la sii ballaadhin doono wax soo saarka bariiska si guud deegaankeena sanadkan waxaanu ka bilownay in 3,000 hektaar oo bariis inaan beerno 4 gobol iyo 7 degmo iyo ahaa dalahaana waa qorshe cusub oo la isku dayayo in wax soo saarka kor loo soo qaado deegaan ahaanna potentialka bariiska ama dhulkii ku haboona iyo dadkii iyo biyihii waanu leenahay oo waan haysanaa saadarteed in laga faa'iideysto waa laga maarmaan dadkeenuna waxyaabaha ugu badan ay isticmaalaan waa bariiska iyo waxyaabo dibadda laga soo gashado marka in xagga damaanadka cuntada la isku filaado waxa loo baahan yahay in fursadaha ka jira deegaankeena sidii loo baahnaan uga faa'iideysano waxa xusuusanaysaan qamadiga markii heerda la bilaabay sanad ka hor 20,000 hektaar baa lagu bilaabay maanta 2.9 milyan oo hektaar ayuu socdaa 3 sano soo socda deegaankeena 20,000 oo hektaar ayaan ku talagalnay 7 degmo inaanu ka beerno bariis bariiska markaad eegtid heer dal wax soo saarka deegaankeenu waxaan u maleynayaa ka labaad inuu yahay xaggan xitaa waxa la ii sheegay hektaarkii ilaa 60 inuu 60 maaragtay kuntaal inuu ka soo baxayo marka waa fursad aad u muhiim ah weeye taa in la sii xoojiyo waa laga maarmaan shaqooyinka aanu bilownayna sidoo kale inaan dabagal ku sameeyno si joogto ah hawshan wax looga qabto waa waxyaabaha maaragtay xukuumad ahaan ina saaran weeye hadda 2 waqti ba ayaan anagu yaan roob helaa inkastoo oon isku dayayno in waraabka lagu beero laakiin biyaha roobku uu ku caawinaya xaggan oo waqtigan hadda imkaan la joogo gobolka Faafan iyo gobolka City oo waqti roobeeda sidoo kale bisha October ee soo socotana 9 gobol kale waqti roobeed buu noqon doonaa marka in laga faa'iideysto ayaan isla qaadanay marka 3,000 inaan buuxino wareegga labaad wuxuu noo noqon doonaa bisha October haddii Ilaahay yiraahdo laakiin xaggan in maanta joogno bariiskan hadda imka arkaysiin 3 toddobaad ka bacdi waa la jari doonaa Shabeelle degmooyinkiisa qaar toddobaadada soo socda u badato 1 toddobaad ay naga qaadan in la jaray noqon doontaa waxyaabaha inoogu muhiimsan waxa weeye hadda wixii loo baahnaa gashiyaashii loo baahnaa in hadda ka hor aan isla qaadanay in la dhameystiro uu ka mid yahay maashinkan maaragtay lagu jaro iyo sidoo kale bariisku sida dalagyada kale la mid maaha waxa loo baahan yahay in la dhilo marka kaaliftiisu ka dhilaya in si degdeg ah loo keeno waa laga maarmaan hawshaan hadda ku jirnaa in si degdeg ah aaga uu maaragtay bariisku diyaar u yahay inaan geyno mustaqbalkana kuleen hadda 7 degmo waxaanu ka bilownay inaan sii ballaarino fursad aad muhiim ah jira bulshadeena in lagu wacyigeliyo waa run oo dadku waxay ku oranayaan maadaama ay garanaynin inta badan khibradda loo haynin in ay dib ku tahay laakiin wax kasta markaanu bilowno ka bacdi ayuu iimanayaa khibradiisii marka sidaa darteed waxa loo baahan yahay in khibradaha jira hal qof oo doctor oo ku takhasusay baa jira oo PhD ku qaatay ka tababaro joogto ah inuu goobaha bariiska laga sameeyo ka siiyay isla qaadanay qorshe clearana oo cad oo kaalinta qaybaha kala duwan ee hawshan ku lug leh
qeexaysa oo si cad maaragtay u dhigaysa in la dhamaystiran isla qaadanay kulli toddobaadada soo socda 3,000 inaan dhamaystirno oo qorshe cad yeelana ayaan isla qaadanay laakiin bilow fiican weeye natiijadiisana wad arkaysaan arrin aad muhiim u ah weeye bari ka maalin dadkeena waxaan isku day doonaa in clusterka bariiska deegaankeena meelo waliba munaasib ku yahay aan waliba aad u sii ballaarino oo xitaa dalahaan waxa lagu tala jiraa meelaha waraabka waa markii ugu horeysay waraab ku baxo 3 noocood oo kala duwan oo bariis ku baxa baa jira waraabka ugu horeeya marka meelaha uu waraab ku baxo irrigated rice la yiraahdo in clusterka irrigated rice deegaankeena uu noqdo ayaan mustaqbalka ku tala jiraa hadii la yiraahdo